maamulka gobolka Banaadir oo dagaal baan ku jiray cudurka safmarka ee COVID-19 si loo badbaadiyo shacabka 3 milyan ka badan ee ku nool magaalada caasimadda Muqdisho ayaa howlo buufin ah oo lagu nadiifinayo guud ahaan magaalada iyo wadooyinkeeda ka bilaabay magaalada caasimadda Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir anaaduqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa daahfuray ololaha lagu buufinayo wadooyinka magaalada Muqdisho si looga hortago faafitaanka cudurka halista badan ee coronavirus. ololahan oo lagu buufinayo magaalada iyo wadooyinkeeda ayaa loogu talagalay inuu ka socdo caasimadda inta uu bandow ka jiro magaalada Muqdisho xilliga habeenkii ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir anaaduqa caasimadda Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo daahfuray ololahan ayaa sheegay in madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa gobolka Banaadir isla garteen in habeenkii magaalada la buufiyo si loo cirib tiro cudurkan safmarka ah ee galaaftay nolosha noole badan oo ku nool caalamka. waxa uu maayirku carabka ku adkeeyay in ololahan uu sii socon doono inta qof ka mid ah shacab ku nool magaalada caasimadda Muqdisho uu la xanuunsanayo ama uu soo ridinayo cudurka COVID-19 oo halis baan ku haya caalamka oo dhan. waxaan ka qayb galay daafurkii buufinta magaalada sida aad ka wada warqabtiin adduunka waxaa saameeyay cudur safmareen ah oo la yiraahdo COVID-19. cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go'aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo buuxiyey jeermisdalayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan. way soconaysaa habeenadan insha Allah taala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka COVID-19 ayuu socon doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo, wacyigelinta bulshada, gaadiidka ambulansiga ah, dadka loo tababaray badbaadinta dadka iyo qaabkii ay ugu sheegi lahaayeen dadka sidii looga hortagi lahaa ama ka hortagga caabuqa COVID-19. dhammaan dadaaladaas socda ayuu qayb ka yahay. waxaan rajaynayaa marka insha Allah taala dadaalada faraha badan ee isbarbar socda parallelka ah in insha Allah ujeedooyinkii laga lahaa oo ah bulsho caafimaad qabta inay Banaadir hesho ayaan rajaynayaa in lagu gaaro biidnillah. waxaanu soo jeednaa marka waxay tahay inaan bulshadeena aan gaarsiino caafimaad qab iyo nabad qab iyo nadaafad. maamulka gobolka Banaadir oo hogaamiyo Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa goostay ololahan lagu buufinayo magaalada iyo wadooyinkeeda si looga hortago faafitaanka coronavirus. waxaa soo dhaweeyay dadweynaha ku nool magaalada caasimadda Muqdisho waxaana laga sameeyay howlahan buufiska ah oo xoog la saaray wadooyin badan oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha ay dadku ku badan yihiin sida suuqyada bakaaraha iyo xamureyn oo ay ku yaalaan macdaro waaweyn oo ay dadku ka dukaameystaan xilliyo kala duwan.